qasri dhalanteeda dhul jarar badan oo bannaankiisu cid kastoo qalaada ku dhiirata inay oogadiisa sare ku socoto iyadoo ujeeddadeedu tahay guluf culaadeed liqayo judhadiiba buuraley xasiisatay siraheeda in ka badan kumayaal sana iyo dad aaminsan jannada la sheegaa inay ku dhowdahay askari diirkiisu cad yahay oo dhukusaya khaarijintiisa sabab ma ayay reer galbeedku ugu dhici la'yihiin qabsashada jamhuuriyadda islaamiga ee iiraan ku soo dhowaada sheekadoo dhammaystiran juquraafiga iyo hadimooyinka ku xeeran badka dhuleeda isku kala bixiso Iiraan waxa uu madaxa ka jarayaa 1,600,000 kiiloomitir oo laba jibaaran waa xaddi ka badan wadamo badan oo Yurub ku yaala marka la isku geeyo badku eelba muu lahaadeena dhibaatada mixnada ku noqotay reer galbeedku waa qaab samaysanka allaheenu uumay dhulkan sarbeebaha miidhan buuraha dhagaxa adag ee dhadhaabaha la ciirciiraya ee Sakros kuna fidsan bariga ilaa galbeedka Iiraan tallaabo kastoo aad dhex qaadaa waxay kugu sii dhaweynaysaa quusta iyo ka quusashada qudhaada bariga Iiraan waxay isku ballaariyay saxaraha Daashluut iyo Daash Kafir mayeedhaanka iyo xamaamadooda ka qaata aagaas aadanaha daqiiqado gudahood ayuu kulaylka iyo omaska darani kala baxayaa faytamiinada ugu muhiimsan jirkiisa gaadiidka iyo walxaha birta ka samaysan sida sahaydu u dheefta dadka qaar ayaa u yaqaana badweyn aan gun lahayn oo arlada guudkeeda ku taala istaraatiijiyadda difaaca hannaanka difaaca ee Iiraan maaha sida kuwa wadamada kale adeegsadaan ee waa mosaic defense hal meel lagu soo hagaagi maayo waa shabakado isku walaaqan oo hoosta iskaga xidhiidhsan jahwareeriyeyna khubarada ku takhasusay difaac weerarka ciidanka ilaalada dawladda kacaanka islaamiga iyo maleeshiyeedka baasiij waa lafdhabarka iyo wadnaha nidaamka Iiraan haddii weerar lagu soo qaado magaalooyinka yaryari waxay isu bedeli doonaan kuwo lagu dhaxambado daaqadaha guryaha ee inanka isha dabaya qoriga wax ku soo shiishayo hadimooyin tirabeela iyo cirka oo ceeriyo noqda diyaaradaha cadowgana halis aan la dhayalsan karin ku ahaada ayaa sugaya duullaanka maalmuhu way kala badanayaan sida ay ku yaqaaneen riyo foolxun oo saskeedu ku sii raago ayay waddooyinka waaweyn isu bedeli doonaan dilaaga aamusan ciidan kastoo awood iyo tayo leh si maalinlaa waxa uu ugu baahan yahay kumayaaltan oo hubka siinuu quuto iyo shidaal si uu u goosho dhulkan cabsida badan taaka kastoo uu cadowgu u qaado dhanka Iiraan waxay ka sii durkinaysaa gurmad si uun ku soo gaadha una sahlaysaa inay si fudud ugu daataan dabinnada loo maleegay dagaalyahano rayida ayaa heegana oo gubaya buundooyinka burburinaya waddooyinka oo gadaasha dagaalka ka furaya jabhad cusub oo aan loo taag haynin heerkulka aadka u sarreeya siigada saxarka badan ee lamadegaanku waxay galaafanayaan agabka ciidanka iyo ciidanka qudhiisa Ciraaq iyo Afghanistan waynu ka warhaynay baabi iyo balanbalkii haleelay ciidanka cadowga ee duullaanka waday iyadoo dhulku curyaamiyey qalabkoodii tayada badnaa Iiraanna waa masiibadaasoo laba jibaaran hubka difaaca cirka ee Iiraan dadka qaar waxay u haystaan in Iiraan lagaga adkaan karo hawada sare balse waxay dawladani leedahay shabakad difaac cireed oo aad u daryeelan gantaalo balaastig oo xambaari kara madaxyada nukliyeerka iyo diyaarado aan duuliyo lahayn oo kumayaal mayl jaraya ayaa lagu hindisay gudaha Iiraan waxay awood u leeyihiin inay duqeeyaan saldhigyada ciidamada ku xeeran ama ka fog ka hor intaan dagaal foolkafool ahi dhicinba godad dhulka hoostiisa iyo dhufayse qaab aanad malayn karin loo adkeeyey oo ka qodan buuraleyda laguna ilaaliyo warshadaha hubka soo saaray iyo hubka laftarkiisa ayaa halbowlo oo jiritaanka jamhuuriyadda Iiraan bambooyinka ugu dhibaatada badan waxba kama qaadayaan dhulkan iyo dunidan kale hooseysa xataa haddii malaayiin tan lagu garaaco samada sare haddii lagu loodiyo halxidhaalaha dhulkaas sugaya ciddii wax loodisay bulshada iyo cawaaqibta siyaasadda dhul inaad xoog ku qabsato haddii aad awooddeeda leedahay way fududahay balse haysashadeeda ayaa kadeed badan in ka badan 80 milyuun oo ruux ayaa ku dhaqan gudaha Iiraan hanjabaad halis gelinaysa maslaxadoodana haddii ay dareemaan way midoobaan waa sunnada lagu yaqaano Iiraaniyiinta xaafad magaalo ilaa gobol kasta waxa laga yaabaa inuu xoogag iska caabineed noqdo furimaha dagaalka waxaad ku arki kartaa qoriga uu sitaa uu ka culus yahay isaga miisaankiisa eelka uu walaaqo duulaanku isagoo isha ku haya xaqiijinta mabaadi' siyaasadeed wuxuu ku ekaadaa waran la ganay oo la garan ogeyn inuu dib ugu soo laaban doono ciddii markii hore riday isku dayo lagu qabsanayo Iiraan ayaa dhicisoobay 10 sano ee la soo dhaafay bulshadan iyo deegaankan mayalka adag ayaa sabab u noqday sii jiritaankeeda buuraleyda dhagaxaanta badan ee xidhiidhsan iyo lamadegaankan badka ballaaran ku fadhiya ayaa sida saableyda u dhowra wadnaha Iiraan
hannaanka difaaca Mosyak ee isku walaaqan gurmadkii soo gaari lahaa cadowga oo isagu gurmad u baahda dhufaysyada dhulka hoostiisa ka qodan iyo godadka hubku karkaarka jabiyey iyo inkaarta ku dhacda cadow kastoo Iiraan guumayso isdhaha ayaa noqday kadeedka isbarkan ee waabiyey awoodahan isaba kacaya haddaba daawada dhankay kula tahay in Iiraan ka nugushahay oo haddii cadowgu haleelo uu ka buuxsan karo nala wadaag faalladaada haddii aad nagu cusub tahayna nagu soo biir asxaabtaadana la wadaag muuqaalkan waad mahadsantahay